السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلامك بعدي. Soomaaliya ha noolaato, Soomaaliya ha israacdo, Soomaaliya ha midowdo. Aamiin, aamiin, aamiin. Hadalku ha yaraado, hawshu ha badnaato. Hadalku ha yaraado, hawshuna ha badnaato. Waxtarkana ha badnaado. Sidaa waxaa lagu yaqaanaa xafidahullah madaxweynaha Soomaaliya Farmaajo. Hadalkiisa waa uu yar yahay, waxqabadkiisana waa inoo muuqdaa. Haddaan nahay shacabka Soomaaliyeed, Ilaahay garaad buuna siiyey aan wax ku fahanno. Maanta waxaa dan inoo ah madaxweynaha hadda xilkiisa dhammaaday inuu 4 sano kale sii hogaamiyo ayaa inoo dan ah haddaan nahay shacabka Soomaaliyeed. Adduun weynaha waa uu qirsan yahay Farmaajo inuu yahay madaxweynihii ugu fiicnaa oo waddankani soo maro markii laga reebo madaxdii Siyaad Barre wixii ka horreeyay. Walaalayaal, Ilaahay shacab wanaagsan buu naga dhigay oo wax fahmay, wax bartay, adduunka meel walba uu ku baahay oo Soomaali la yiraahdo. Soomaali markoodii hore wax ma akhrin jirin, waxna ma dhageysan jirin. Laakiin haddeertaan caalamka waa uu sii hormaray, dadka hormarayaana ka mid nahay. Aaladaha internetka ayaa maanta wixii la soo geliyo shacabka Soomaaliga ah ama shakhsiga Soomaaliga ah, ninka siyaasiga maanta waddanka xukumi raba waxa uu ku hadlaayo dhageysta waaye shacabka Soomaaliyeed. Laakiin markoodii hore sidaa ma u ilbaxsaneen, laakiin maanta wax badan ayay og yihiin. Sidaa darteeda waxaan mar walba aan u sheegi lahaa dadka siyaasiyiinta ah raba inay waddanka sii xukumaan, madaxweyne ka sii noqdaan raba. Waxaan mar walba ku baraarujinayaa shacab weynaha sidii hore loo qaldi jiray iminka looma qaldi karo. Shacab weynaha Soomaaliyeed markoodii hore haddii la qaldi jiray hadda ma la qaldi karo, waayo dad wax bartay iyo dad wax akhriya iyo dad wax dhageysta ayay noqdeen. Idan marka siyaasiga oo raba inuu madaxweyne noqdo oo waddankaasi raba inuu wax ka xukumo, waxaan kugula talinayaa haddaba waa inaad shacab weynaha u soo bandhigtaa waxqabadkaagii dhabta ah. Waayo shacab weynaha wixii dhabka ah iyo wixii mujaamalo ka ahna way kala fahmi karaan. Marka waxa weeyaan dadkii la fahmay waxaan rajaynayaa inay meesha iskaga baxaan. Dadka hadda mujaamalaynayana waa lagu fahmi doonaa waqti dhowba haba Ilaahay ka dhigay. Marka mujaamalo Soomaaliya waa kaga dhamaatay, waqti la mujaamalayn jirana way jirtay, laakiin hadda mujaamaladii way dhamaatay. Haddaba siyaasiyow waxaan ku leeyahay anoo magacaaga sheegaynin, wallaahi billaahi tallaahi shacabkii wax waa fahmeen. Waxaan ku oran lahaa intaadan soo istaagin shaashadaha waxa ku hadlaysid waa inaad marka hore soo diyaarsataa. Sidaas ayaan kugula talin lahaa, waayo waxaa la rabaa wax qabad baa la rabaa. Maanta wixii wax qabanayana waa la arkay, wixii wax soo qabtana waa la arkay, wixii wax qaban doonana waa la og yahay insha Allah tabaaraka wa tacaala. Shacab weynaha wax ka qarsoon iminka ma jiraan, wax walbana waa u muuqdaan. Marka waxaan dhihi lahaa oo ku baraarujin lahaa